Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale iyo dhacdooyinkii toddobaadka. Waxaan idin soo tabriya anigu waa taariikhyahaan Taali. Magaalada Dubai ee Sultanka Imaaraadka ayaa waxaa ku dhuftay daadad aad u xoog badan kaasi oo sababay burbur iyo dhibaato aad u xoogan. Saacadihii la soo dhaafay waxaa shirkadaha caalamka iyo dhammaan baraha bulshada la iskula wadaagayay kana muuqanayay dhibaatada aadka u weyn ee magaaladaasi ku sababay daadka. Daadka ayaa meelo badan galay sida guryaha, laamiyada waaweyn ilaa iyo qaybaha dhulka hoostiisa. Lama oga ilaa iyo hadda sida rasmiga ah waxa sababay, balse waxaa loo badinayaa inuu yahay roobab ka da'ay saxaraha kuwaasi oo markii dambe isu soo rogay daadad aad u waaweyn oo ku soo rogmaday dhanka hoose ee magaalada. Daadadkaas magaalada ku soo rogmaday oo baabuur iyo dad qaaday guryaha iyo qaybo badanna jajabiyay waxyeello aad u xooggan gaarsiiyay kaasi oo sababay in dad badan ay ka kacaan barahoodii iyo guryahooda ay deganayaan loona geeyo si ku meel gaar ah xarumo ay noolaadaan oo ay ku yaalaan dhismayaal ay dowladdu ugu deeqday iyo dad shacabo wax la sugu diray. Taas dhibaatada ka dhalatay waxay saameysay dhan walba oo magaalada marka laga reebo fooqaqa aadka u waaweyn ee dhaadheer, laakiin dhammaan guryaha hoose iyo kuwa dhulka hoostiisa ku yaala daadku saameyn xooggan buu ku yeeshay. Isku socodku dhammaan waa istaagay dhan walba ay tahay airport ilaa iyo dhul kaliya badda oo furan. Inta kale daadadku ayaa haysta u maraya jidadka waaweyn. Waxaa la arkayaa baabuurtii oo biyuhu wadaan xitaa dadka, xayawaanada iyo geedaha. Waxaa kaloo dheeriya oo la socda biyahan ciid aad u tiro badan oo aad moodo inay saxaraha hoose ka timi, taas oo magaalada soo galaysa iyadoo daadadka qayb ka ah. Daawade tan iyo intaynu dib u kulmi doono waxaan ku leenahay kulanti wacan oo wanaagsan. Ka mid noqo saaxiibada ku xidhan halkan ka qayb qaado barnaamijkan sidoo ku gaari lahaa qof walba iyo ruux walba.